gaashaanbuurta NATO ama North Atlantic Treaty Organization waa isbahaysi ciidan iyo mid siyaasadeed oo maanta ka laalaada qardheer maadaama tiirkii dhexe ee isku hayay uu caga badan ku taagnayn. NATO is a paper tiger. NATO is us. And when we needed them, we didn't need them, by the way. waa sidee qaab dhismeedka ciidan iyo siyaasadeed ee NATO yaa bixiya lacagta ku baxda mise la joogaa waqtigii NATO ay burbur lahayd. When we need them to allow us to use their military bases, their answer is no. Then why are we in NATO? You have to ask that question. Why do we have billions and billions of dollars, hundreds of billions of dollars? dagaalkii labaad ee adduunka ayaa dhamaaday. Yurub waxaa ka muuqda burbur baaxad leh, dad gaajaysan iyo magaalooyin dambas noqday. taasi marka laga yimaadana waxaa durba soo baxday cabsi cusub. waa midowgii Sovieti oo saameyn xooggan ku yeelanaya iskuna fidinaya bariga Yurub. haddaba xaaladaasi marka ay soo kordhay, qaar ka mid ah wadamada Yurub ayaa saxiixay heshiis difaac. laakiin markii dambe waxay garowsadeen inaanay Mareykanka la'aantiisa uba bacdhigi karin Sovietka. waxay hoosta ka xariiqeen haddii aysan cududooda midaynin in mid loo liqi doono. 4 Abriil 1949 waxaa magaalada Washington lagu saxiixay heshiiska lagu aasaasay NATO. 12 dal ayaana baddig u noqday kuna heshiiyey inay yeeshaan difaac wadajir ah. kolkii hore ujeedka NATO loo aasaasay intiisa badan wuxuu ku jangoonaa in Sovietka laga hor istaago inuu ku fido Yurubta galbeed. Mareykanka gudaha Yurub la soo geliyo, Jarmalkana hoos loo dhigo oo uusan yeelan awoodii military ee uu kaga qayb qaatay dagaalkii koowaad iyo midkii labaad ee dunida. Mareykanka iyo Yurubta NATO ku midoobay iyo waliba Sovietku isku saf ayay ku jireen dagaalkii labaad ee adduunka oo waxay xididada u siibeen nidaamkii Naaziga Jarmalka ee Hitler. laakiin markii dambe waxaa kala geeyay fikirka ama ideologiga ay ku kala duwanaayeen. Mareykanka iyo Yurubta galbeed oo aaminsanaa nidaamka raasumaaliga ama suuqa xorta iyo dimuqraadiyadda, halka Sovietku uu riixayay fikirka nidaamka hanti wadaagga. markii NATO la aasaasay, dalal dhowr ah ay ku biireen. dhanka kale, gaar ahaan dalalkii hanti wadaagga ayaguna waxay yeesheen iskaashi waxayna saxiixeen heshiiska Warsaw Pact. waxaana markaasi sii xoogaystay dagaalkii qaboobaa ee dunida ee bilowday 1947. intii uu socday dagaalkii qaboobaa, dalal dhowr ah ayaa NATO ku biiray sida Greega, Turkiga, Jarmalkii galbeed iyo Spain. nidaamkii hanti wadaagga ee Sovietka markii uu dumayna, NATO waxay gashay marxalad cusub gaar ahaan intii u dhaxaysay 1991 ilaa 1999. waxayna bilowday barnaamij la yiraahdo Partnership for Peace, iskaashiga nabadda, kaasoo dalalkii hore uga midka ahaa Sovietka fursad u siinayay inay xiriir la sameeyaan NATO iyagoo wali aan xubin noqon. waxaana NATO 1999 ilaa 2004 ku soo biireen Poland, Hungary, Jamhuuriyadda Czech, Latvia, Lithuania, Romania, Bulgaria, Slovakia iyo Slovenia. sidoo kale 2009 ilaa 2024 waxaa ururka si rasmi ah uga mid noqday Albania, Croatia, Montenegro, North Macedonia, Finland iyo Sweden. maanta waa 12 dal oo NATO lagu aasaasay iyo 20 kale oo ku biiray sanado kala duwan. si guud marka loo eego qaab dhismeedka NATO, waa mid u qaybsan laba heer siyaasadeed iyo heer military. guddiga ugu sareeya ee NATO waa NAC, waxaana alaaba hogaamiya dad rayid ah. waddan kastana wuxuu ku leeyahay kursi, safiirada ama xitaa madaxweynayaasha dalalka ayaana fadhiista, waana halka lagaga codeeyo go'aanada masiiriga sida in dagaal la galo ama dal cusub lagu soo daro NATO. dhanka xilalka siyaasadda, xilka ugu saameynta badan waa xogayaha guud oo haatan uu hayo Mark Rutte, kaasoo u dhashay dalka Netherlands. xogayaha guud ee NATO waa dhexdhexaadiye shaqadiisu tahay inuu isku keeno madaxda dalalka, fududeeyo wada hadalka iyo inuu ahaado wajiga NATO ee caalamka hor istaaga. guddiga militariga NATO waxaa qayb ka ah taliyaasha ciidamada ee dalalka xubnaha ka ah, waana guddi talo siiya heerka siyaasadeed. guddiga militariga wuxuu leeyahay garab fulineed oo loo yaqaano IMS, waana garab diyaariya qorshaha dagaalka iyo tababarada. sidoo kale NATO waxay leedahay 2 talis oo waaweyn oo istiraatiiji ah. ACO oo xaruntiisu tahay magaalada Mons ee dalka Belgium. taliyaha guud ee taliskana waxaa had iyo jeer noqda General Mareykan ah, waana mid maamula dhammaan howlgallada ciidanka iyo difaaca dhulka ee NATO. taliska kale waxaa lagu magacaabaa ACT, xaruntiisu waa magaalada Norfolk ee dalka Mareykanka. si ka duwan taliska ACO-na,
taliskan waxaa mar walba taliyaha ugu sareeya noqdaa generaal Faransiis. taliskan shaqadiisu maaha inuu diiradda saaro dagaalada tooska ah ee waa mid isku howla casriyeynta ciidanka, barashada tiknoolajiyadda cusub iyo sidii ciidamada 32 dal looga dhigi lahaa kuwa si isku mid ah wada shaqeeya. NATO waxay kaloo leedahay hay'ado u xil saaran waxyaabo gaar ah sida NSPA oo mas'uul ka ah saadka, iibka hubka iyo qalabka kala duwan. sidoo kale waxaa jirta hay'ad loo yaqaano NCIA oo u xil saaran isgaarsiinta, kombiyuutarada iyo sirdoonka dhanka internetka. NATO ma lahan ciidan u gaar ah sida dalalka, laakiin waxay leedahay hoggaan ciidan oo midaysan kaas oo maamula ciidamada ay dalalku soo diraan xilliyada dagaalka ama tababarka. qodobka 10aad ee heshiiska lagu aasaasay NATO waa mid tilmaamaya sida looga mid noqon karo gaashaanbuurta, waana waxa loo yaqaano siyaasadda albaabka furan. qodobka 10aad wuxuu qeexayaa in ururka ay ku soo biiri karaan kaliya dalalka Yurub dhaca. tanina waa sababta dalalka ku yaala Afrika, Aasiya iyo Latin America aysan xubin buuxda uga noqon karin NATO, xitaa haddii ay saaxiib dhow oo lagu kalsoon yahay yihiin. Mareykanka iyo Canada oo aan dhicin Yurubna waxay goobjoog u ahaayeen qodobkan 10aad oo waa aasaasiyaasha. Turkiga qayb ahaan waa u dhacaa Yurub, laakiin intiisa badan dhul ahaan waxaa la raacayaa qaaradda Aasiya. inuu qodobka 10aad ee NATO ka gudbana waxaa u suurtagelisay goobta istiraatiijiga ah ee uu dhaco ee NATO sida weyn ugu baahan tahay. waa dalka maamula marinka Bosphorus oo ah marinka kaliya ee maraakiibta dagaalka ee Ruushka ee fadhigoodu yahay badda madow ka gudbi karaan marka ay doonayaan inay aadaan badaha caalamka. maanta Turkiga waa dalka leh ciidanka labaad ee ugu weyn NATO, Mareykanka kaliya ayaana kaga tun weyn dhankaas. Finland iyo Sweden labadan dal waxay muddo 10 sano ah ahaayeen kuwa dhexdhexaad ah oo aan dhinacna raacsanayn, laakiin taasi waxay ka tanaazuleen kadib markii uu Ruushku weeraray Ukraine 2022 waxayna garowsadeen in dhexdhexaadnimadu aysan ka difaaci karin Ruushka, waxayna xal u arkeen inay NATO ku biiraan. waxay codsadeen xubinnimada bishii May ee 2022. Finland April 2023 ayay si rasmi ah u noqotay xubin, halka Sweden ay bishii 3 ee 2024 noqotay dalkii ugu dambeeyay ee NATO xubin ka noqda. si uu dal uga mid noqdo NATO waa inuu qanciyaa kana raali noqdaan dhammaan dalalka xubnaha ah. haddii hal dal uu diidmo siiyo kama mid noqon karo difaaca wadajirka ee NATO. tusaale, Turkigu wuxuu NATO ka hor istaagay Sweden asigoo doonaya inuu Mareykanka ku cadaadiyo inuu ka iibiyo diyaaradaha dagaalka ee F-16. Ingiriiska iyo Faransiiska waa labada quwadood ee Yurub dhaca ee NATO ka dhex tilmaaman. waa labada dal ee kaliya ee hubka nuclear-ka haysta marka la eego dalalka Yurub ee xubnaha ka ah NATO. 1966 ayuu Faransiisku qayb ahaan isaga baxay NATO, muddo dheer ayuuna ka maqnaa. madaxweynihii Faransiiska ee xilligaasi Charles de Gaulle wuxuu ahaa nin aaminsan in Faransiisku uu yahay quwad weyn oo aan cidna ka amar qaadan. de Gaulle wuxuu dhibsaday in Mareykanku uu gebi ahaanba kontaroolo go'aanada NATO, Faransiiskuna uu noqday mid laga amar weyn yahay. wuxuu diiday in hubka nuclear-ka ee Faransiiska la hoosgeeyo kontaroolka NATO ama Mareykanka, wuxuuna rabay inuu isagu go'aamiyo goorta la isticmaalayo. waxaana sidoo kale gudaha Faransiiska ka jiray guux diidayay in Faransiiska lagu riixo dagaalada uu Mareykanku ka waday dunida sida kii Vietnam ee xilligaasi socday. Faransiisku wuxuu ka baxay hoggaanka militariga ee isku dhafka ah. saldhigyadii militari ee Mareykanka ee Faransiiska ayaana la xiray, sidoo kalena waxaa magaalada Paris laga raray xaruntii guud ee NATO, waxaana loo bedelay caasimadda Belgium ee Brussels oo ilaa maanta ah xarunta dhexe ee NATO. Faransiisku wuxuu si buuxda ugu soo laabtay hoggaanka militariga ee NATO bishii Abriil 2009 isagoo soo afjaray 43 sano oo uu dibadda ka joogay taliska guud. Jarmalka waa dalka ugu dhaqaalaha badan Yurub, marka NATO la joogana waa dalka isku xira dhammaan isbahaysiga, gaar ahaan marka laga hadlayo dhinaca saadka iyo difaaca dhulka. wuxuu mas'uul ka yahay inuu hubiyo inay wadooyinku diyaar u yihiin inay qaadaan taangiyada culus ee xulufada. haddii dagaal ka dilaaco barigana, Jarmalka ayaa mas'uul ka ah daryeelka iyo qaadida askarta ku dhaawacanta safka hore. sanadkan Jarmalku wuxuu ansixiyay miisaaniyadan ilaa 82 bilyan oo euro oo loogu talagalay ciidanka, wuxuuna Chancellor-ka Jarmalka ballan qaaday in dalkiisu uu yeelan doono ciidanka lugta ee ugu xooggan Yurub si looga hortago Ruushka. dadaalada Jarmalka waxaa cagsi ku ah dalka Iceland oo waa dalka kaliya ee NATO ka tirsan ee aan lahayn ciidan joogto ah. qodobka ugu muhiimsan ee heshiiska NATO waa qodobka 5aad,
waana qodobka macnaha iyo miisaanka u sameeya NATO. waa qodob tilmaamaya haddii la weeraro dal ka mid ah NATO ay la mid tahay in la weeraray dhammaan 32 dal ee xubinta ka ah gaashaanbuurta. ma aha qodob si degdeg ah u fula, ee waa mid u baahan wada tashi in si dhab ah loo xaqiijiyo in la weeraray dal ka mid ah NATO. haddii dal ka mid ah NATO la weerarana waxaa waajib ku noqonaysa dal walba inuu caawiyo dalka la weeraray. hal jeer oo kaliya ayaa qodobka shanaad la fuliyay taariikhda, waana markii uu dhacay weerarkii New York ee 11 September 2001. isla maalintii xigtay dalalka NATO waxay garab istaageen Mareykanka, laakiin 2 Oktoobar 2001 ayaa si rasmi ah loo guda galay fulinta qodobka shanaad, waxayna xulafadu Mareykanka ka saaciday dagaalka uu ku qaaday Afghanistan. laakiin dhawaan Trump wuxuu ka dhawaajiyay hoosna uu u dhigay kaalinta NATO ee ku lahayd dagaalkii Afghanistan, asigoona sheegay in Mareykanku uusan weligiis u baahan NATO. wuxuu xusay in ciidamada ay soo direen ay ka fogaayeen furimaha hore ee ciidanka, Mareykanka gadaashiisana ay joogeen. hadalkaas carro weyn ayuu ka kiciyay gudaha Ingiriiska, wuxuuna ra'iisul wasaaraha Ingiriiska uu hadalka Trump ku sifeeyay mid meel ka dhac ku ah ciidanka Ingiriiska ee Afghanistan lagu dilay, waliba ayagoo Mareykanka caawinaya. dagaalkii Afghanistan in ka badan 1,100 askari oo Mareykan ahayn oo ka socday dalalka kale ee NATO ayaa ku dhintay, laakiin Trump wuxuu u arkaa ciidankaasi kuwa aan furinta tagin si fulaynimo ahna u dhintay. We have never really asked anything of them. You know, they'll say they sent some troops to Afghanistan or this or that. And they did. They stayed a little back, a little off the front lines. tan iyo markii Mareykanka iyo Israa'iil ay Iran weerareen wuxuu dhowr jeer Trump ku qiilo dhaamiyay in xulafadu ka saacido dagaalka, waliba asigoo calaamad su'aal saaraya waxa NATO ay tarto Mareykanka. xogayihiisa arrimaha dibadda ayaana sidoo kale dhowr jeer ku nuuxnuuxsaday in Mareykanku ka fiirsanayo ka simid ahaanshaha NATO. Mareykanka waa kan bixiya inta ugu badan miisaaniyadda difaaca ee NATO, wuxuu bixiyaa ilaa 70% oo ah wadarta guud ee qarashka difaaca ee 32 dal. waxa aan ka hadlayno waa lacagta dal kasta uu ku bixiyo ciidankiisa, hubkiisa iyo tiknoolajiyadiisa si uu ugu biiriyo awoodda guud ee NATO. kaliya 2024 ilaa 2025 Mareykanka qarashkiisa difaaca wuxuu kor u dhaafay 935 bilyan oo dollar, taasoo ka dhigan in ka badan labanlaabka dhammaan dalalka kale ee NATO oo la isku daray. miisaaniyadda tooska ah ee NATO sida maamulka xafiisyada, mushaarka shaqaalaha Brussels iyo qalabka la wadaago, Mareykanku wuxuu bixiyaa qiyaastii ilaa 16% oo kaliya, waxaana jiraan dalal la mid ah sida Jarmalka. tan iyo markii Trump la doortay wuxuu si xoogan ugu ololeeyay kuna cadaadiyay dalalka Yurub inay ugu yaraan difaacooda ku bixiyaan 2% oo ah GDP-ga ama wax soo saarkooda guud ee gudaheed. waxaa jira qorshe loo yaqaano qorshaha maalgashiga ee The Hague, kaasoo lagu ansixiyay shirkii ka dhacay magaalada The Hague bishii June ee 2025. ujeedka qorshahan waa in dal walba uu ilaa 5% oo wax soo saarkiisa gudaheed ah ama GDP-ga uu ku bixiyo dhanka difaaca marka la gaaro 2035, lagana guuro yoolkii ahaa 2%. waxaana qorshahan si weyn u soo dhaweeyeen dalalka ka agdhow Ruushka, oo Poland sanadkii la soo dhaafay ayayba ku dhawaatay ilaa 5%, maadaama ay gaartay qiyaastii 4.7%. in ka badan 80,000 oo askari oo Mareykan ah ayaa ku sugan Yurub, kuwaasoo ku kala firirsan ilaa 31 saldhig oo joogto ah iyo dhowr goobood oo kale oo ciidan oo ku kala yaala dalalka Yurub. Mareykanku waa dalka kaliya ee NATO ee bixiya difaaca nuclear-ka ee baahsan, wuxuuna hubkiisa nuclear-ka ku keydiyaa ilaa 5 dal oo Yurub ah: Jarmalka, Talyaaniga, Belgiumka, Netherland iyo Turkiga oo qayb ahaan Yurub dhaca, si looga hortago weerar kasta oo weyn. Mareykanku wuxuu hadda ka codsanayaa dalalka Yurub inay qaataan mas'uuliyadda koowaad ee difaaca qaaradooda, halka uu Mareykanku doonayo inuu xoogga saaro tartanka military ee kala dhaxeeya Shiinaha. waxaa jirta dood kale oo internetka taala oo qeexaysa in sababta uu Trump u doonayo inuu NATO uga saaro Mareykanka ay tahay in Israa'iil ay qorsheynayso inay weerarto Turkiga, sidaas daraadeedna laga shaqeynayo sidii uu Turkigu ugu shaqeyn lahayn qodobka shanaad ee NATO.